haddaba haddii aad doonayso in aad noqoto qof ku raaxaysta nolosha adduunka oo mar waliba faraxsan, raac talooyinka aan ku siinayo. Ha lagaa helo iimaan qalbigaaga buuxiya, kuna shukri Allah mar kasta. wax tagatiisimaad ma leh, ha ka fekerin wixii ku dhaafay, qaadkaaga kaliya ka baro. ku qanac qismada iyo xukunka Alle iyo risqigii lagu siiyey. fiirina cidda kaa hoosaysa ee ha fiirina cidda adiga kaa saraysa. badi baryada Alle iyo xuska Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka nadiif qalbigaaga xaasidka iyo xaqdiga adoomada ee eebe. ku dadaal akhriska kitaabka kariimka ah, saaxiibna ka yeelo waa badbaadada adduunka iyo aakhiraba. nidaami howlahaaga, nolol maalmeedkaaga, shaqadaada, gurigaaga iyo meel kasta oo aad joogto, kuna xirnow Allah. ku dadaal socodka iyo jimicsiga. qalbiga fayow wuxuu ku jiraa jirka fayow. akhri buugaagta taariikhda ah si aad wax uga ogaato sooyaalka nolosha adduunka soo maray, kana baro dadka kaa waaweyn. kana dheerow maandooriyaasha, qaadka, qamriga iyo daroogada iyo wixii la mid ah. ku dadaal nadaafadaada, maryahaaga iyo bilicda muuqaagaba. Alle ugu mahadnaq nimcooyinka uu ku siiyey ee ay ka mid yihiin aragga, risqiga, diinta, caafimaadka, maqalka iyo wixii la mid ah. ogow in dadka ay ka mid yihiin kuwa waayey caqliga, caafimaadka, maqalka, aragga iyo caafimaadka. ku dadaal akhriska quraanka iyo dhageysigiisa, xifdintiisa, waayo wuxuu quraanka daawo u yahay xanuun kasta. Alle tala saaro, isaga ayaa kugu filanay. cafi qofka ku dulmiyey, xiriiri kan kugu gooyey, u dulqaada kan kugu xadgudbaa. bada istighfarta, waxaad heli doontaa risqi, qalbi nadiif ah iyo wax walba aad u baahan tahayba. ku qanac muuqaalkaaga, shaqadaada, dhaqaalahaaga, gurigaaga, ehelkaaga, ilmahaaga iyo wax walba eeba ku siiyey. dhahna alxamdulillah.